daawade ka waran adiga iyo qoyskaaga oo meel biyo ah ku nasanaya si lama filaan ahna ay biyuhu uu ka soo baxo bahal weyn oo naxariis daran oo dadka hal u liqaya sidee dareemi lahayd haddii qofka aad adduunka ugu jeceshahay indhahaaga hortooda loogu cuni lahaa adiguna aad xiran tahay oo aadan waxba u qaban karin waa qisada naxdinta leh ee ku dhacday dadka degan tuuladan aan ku arki doono filimkan halkaas oo ay isku seegayaan jinnigii biyaha iyo nin dhalashadiisa la quudhsaday oo ah geesiga keliya ee badbaadin kara haddaba haddaad horay noola joogtay like saar muuqaalka haddaad nagu cusub tahayna fadlan subscribe noo saar si aadan u seegin filimada soo socda haddaba aynu bilowno filimkeena filimku wuxuu ka bilaabmayaa tuulo nabad ah oo ku dhow webi qulqulaya halkaas oo gabadh yar ay ku ciyaarayso biyaha agtooda aabaheed ayaa u yimaada oo uga diga inay aad ugu dhowaanin isagoo u sheegaya in jinni webi uu jiidi karo haddii aysan taxadarin gabadhii way aamusaysaa waxayna sii eegaysaa biyaha iyadoo aan garanayn wax ay ku fikirto si kedis ah aabaheed ayaa webiga ka soo boodaya oo ka nixinaya taasoo keenta inay oydo si uu u qaboojiyo wuxuu bilaabaa inuu biyaha dhexdiisa si qosol leh ugu dhaqdhaqaaqo ilaa ay mar kale bilowdo qosolka daqiiqada farxadda leh ma sii jirto wakhti dheer sababtoo ah wax ka hooseeya biyaha ayaa si kedis ah u qabsanaya oo hoos u jiidaya isagoo dilaya kadib dhacdadan naxdinta leh wadaad ayaa tuulada imaanaya wuxuuna webiga ku dilaa kalluun qariib ah isagoo ku dhawaaqaya inuu burburiyey jinnigii webiga wax yar kadib waxaana la barayaa shuwaan oo ah nin dhalinyaro ah oo dhab ahaan ah ugaarsi xirfad leh oo dila jinka iyo makhluuqaadka halista ah isaguna ah diiradda dhabta ah ee sheekada shuwaan wuxuu ku adkaysanayaa in makhluuqaadkii uu wadaadku dilay uu ahaa uun kalluun shaydaan oo caadi ah iyo in jinnigii runta ahaa ee webiga uu weli webiga ku dhex dhumanayo laakiin dadka tuulada ayaa diidaya inay aaminaan iyagoo ku xukumaya muuqaalkiisa daciifka ah ee aan cajiibka ahayn xitaa gabadhii yarayd hooyadeed ayaa ka leexanaysa digniintiisa wadaadku wuu ku diganayaa isagoo ugu yeeraya qof aan jirin oo ku dhiiranaya inuu loolan la galo wuxuuna si xanaaq leh u amrayaa dadka tuulada inay ciqaabaan iyagoon wax weydiin waxay xarig ku xirayaan shuwaan wayna daldalayaan iyagoo ku qanacsan in khatartii ay dhammaatay iyagoo dareemaya badbaado dadkii tuulada ayaa bilaabaya inay si hor ah webiga ugu dhex dabaashaan iyagoo u dabaaldegaya wax ay rumaysan yihiin inuu yahay dhammaadkii jinniga isagoo dhibtoonaya shuwaan wuxuu si kedis ah u arkaa jinnigii webiga ee dhabta ahaa oo u soo dhowaanaya dabaaldegayaasha wuxuu si quus ah ugu qaylinayaa in qof walba biyaha ka soo baxo laakiin qayladiisa waa la iska indhatirayaa daqiiqada gudahood jinnigii ayaa weeraraya isagoo dilaya qaar badan oo iyaga ka mid ah fowdadiina waxay ku baahaysaa tuulada oo dhan kuwa yar ee badbaaday waxay si deg deg ah uga soo baxayaan biyaha oo ay dhuumanayaan yuwaan ayaa markaas ka codsanaya inay jiifaan oo ay iska dhigaan inay dhinteen si jinnigu isaga tago tani waxay muujinaysaa in kasta oo uu yahay ugaarsi jinka haddana uu dhab ahaan daneeyo badbaadinta nolosha markan waxay raacayaan tilmaamihiisa laakiin inta lagu jiro cabsida isla gabadhii yarayd ayaa la arkaa iyadoo u orodaysa dhanka hooyadeed jinnigii webiga ayaa si kedis ah u qabsanaya gabadhii yarayd xitaa in kasta oo hooyadeed iyo dhowr qof oo tuulada ah ay u soo ordeen oo ay la halgameen sidii ay dib ugu soo jiidi lahaayeen makhluuqaadkii wuxuu ku cunayaa horteeda iyadoo ay kaxaynayso murugo iyo xanaaq gabadha hooyadeed ayaa isku tuuraysa webiga iyadoo rajaynaysa inay burburiso bahalka laakiin iyadana waa la dilayaa jinnigii ayaa markaas u soo ordaya dhanka wiil yar laakiin wuxuu soo dhex galaa wakhtigii saxda ahaa wuuna badbaadinayaa dadaal weyn kadib dhowr qof oo tuulada ah iyo haweenay xoog badan ayaa ku guulaystay inay jinnigii biyaha ka soo saaraan markii uu dhulka yimaado wuxuu u beddelmayaa qaab bini'aadam si uu isugu dayo inuu isxajiyo oo uu xukunka dib u helo wuxuu bilaabaa inuu akhriyo tuducyo naxariis leh oo budist ah isagoo isku dayaya inuu dejiyo oo uu xukumo ruuxa laakiin jinnigii ayaa ka dhex baxaya saamayntaas wuxuuna mar kale weerarayaa daqiiqadaas haweenay la yidhaahdo duwaan ayaa soo muuqanaysa iyaduna waa ugaarsi jinka sida shuwaan oo kale laakiin si ka duwan isaga iyadu ma muujiso wax naxariis ah acting swiftly and without hesitation waxay ka adkaanaysaa qof kasta oo jidhkeeda ku soo dhaca waxay si naxariis darro ah u garaacaysaa jinnigii webiga waxayna isticmaalaysaa sixirkeeda si ay ugu yarayso boombalo yar oo jinni webi ah dadka tuulada ayaa markiiba ammaanaya oo mahad celinaya duwaan ayaa markaas u soo jeesanaysa shuwaan waxayna ka dalbanaysaa inuu sheego qofka uu yahay isaguna wuxuu isku barayaa inuu yahay ugaarsi jinka isagoo tusaya buugga tuducyada budistka ah ee uu sido duwaan waxay ku dhex jirtaa qosol waxayna si sharaf leh u tusaysaa jijimada sixirka ah ee gacanteeda ugu jirta ka hor intaysan iska bixin kadib shuwaan wuxuu la kulmaa qof ka sarreeya wuxuuna u sheegayaa wax kasta oo ka dhacay jinnigii webiga keliya si uu ogaado in qofka ka sarreeya uu horay uga warhayay dhacdada qofka ka sarreeya ayaa sharaxaya in wakhti fog ka hor jinnigii webiga uu ahaa mid naxariis badan uuna mar badbaadiyey ilmo qarqoomay laakiin dadka tuulada ayaa si khaldan u fahmay falkaas waxayna rumaysteen in jinnigu uu dhib ula jeeday cabsi iyo xanaaq dartiis waxay dileen makhluuqaadkii waxayna jidhkiisii dib ugu tuureen webiga laga soo bilaabo daqiiqadaas ruuxiisa wuxuu u beddelmay mid qadhaadh oo aargoosi ka buuxo shuwaan ayaa markaas weydiinaya in tuducyada budistka ay dhab ahaan leeyihiin awood ay ku beddelaan jinka noocaas ah qofka ka sarreeya ayaa si adag ugu xaqiijinaya in tuducyadu ay yihiin kuwa awood weyn leh oo ay ku hidi karaan jinni kasta dib ugu soo celinta naxariista shuwaan wuxuu qiraa in mararka qaarkood uu dareemo inuu burburiyo jinka sida ugaarsatada kale ay sameeyaan haddana qofka ka sarreeya ayaa joojiya wuxuuna xasuusiyaa in rabshadu ay keliya abuurto nacayb badan halka tuducyada muqadaska ah ay dejin karaan oo ay beddeli karaan xitaa ruuxa ugu madow muuqaalku wuxuu markaas u wareegayaa lamaane soo gaaraya maqaayad cidlo ah oo ku dhex qarsoon keyrta markii ay gudaha u galaanba albaabka ayaa keligiis xirmaya isagoo soo bandhigaya meel madhan oo cabsi leh oo aan qof kale joogin adeegihii ayaa u soo dhowaanaya lamaanaha wuxuuna si sharaf leh ugu soo bandhigayaa takhasuska maqaayadda kaas oo ah doofaaro si qurux badan loo dubay oo u muuqda kuwa afka biyaha ku keenaya iyagoo ku damcay uduga qaniga ah waxay fadhiisanayaan oo ay bilaabayaan inay cunaan
way la yaabeen sida wax kasta ay u dhadhamayaan waxayna si xamaasad leh u ammaanayaan cunto kariyaha. wax yar kadib milkiilaha maqaayadda ayaa ugu soo biiraya miiskooda, gabadhiina waxay si xiiso leh u weydiinaysaa sida uu ugu guulaystay inuu diyaariyo cunto cajiib ah oo noocan oo kale ah. digniin la'aan, milkiilaha ayaa soo bandhigaya qaabkiisa dhabta ah ee argagaxa leh, waxayna ku garanayaan cabsi inuu yahay jini. makhluuqaadkii wuxuu u dhaqaaqayaa inuu weeraro iyadoo ay isku dayayaan inay baxsadaan, laakiin cabsida dhexdeeda waxay dareemayaan wax laga naxo oo ku saabsan doofaarada duban. markay si dhow u eegaan waxay ogaanayaan in jirkoodu uusan ahayn xayawaan gebi ahaanba, laakiin ay yihiin bini'aadam duban. ka hor intaysan baxsan, jinnigii ayaa si naxariis darro ah u dilaya. kadib shuwaan wuxuu imaanayaa isla maqaayadii keyrta, halkaas oo gabadh ay si diiran ugu soo dhoweynayso una soo jeedinayso doofaarada duban ee guriga u gaarka ah. isagoo ah ugaarsi jinka, wuxuu markiiba dhex arkaa dhalanteedka, isagoo dareemaya meydad meeshii macaamiishu joogi lahaayeen iyo hadhaaga bini'aadamka oo loo ekaysiiyey cunto. wuxuu si degan ugu sheegayaa gabadha inay joojiso iska dhigista sababtoo ah wuxuu og yahay inayay tahay jini iyo in khiyaanadeedii ay fashilantay. si kedis ah ayay u weeraraysaa, laakiin duwaan ayaa si kedis ah u soo muuqanaysa iyadoo isticmaalaysa jijimadeeda sixirka ah, waxayna si degdeg ah u burburinaysaa jinka mid ka dambayn kale. milkiilihii maqaayadda ayaa si kedis ah u soo muuqanaya, duwaan ayaana weeraraysa iyadoon labalabayn, iyadoo ka adkaanaysa iyadoo runta lasoo bandhigay inuu dhab ahaan yahay jini doofaara. shuwaan wuxuu si degdeg ah u qabsanayaa gacmaha jiniga si uu u xajiyo, halka duwaan ay isku dayayso inay awooddeeda u isticmaasho inay ruuxa ka soo saarto oo ay nuugto. waxay jinnigii doofaarka u soo jiidaysaa dhankeeda, waxayna isku dayaysaa inay ku xirto boombalo yar iyadoo isticmaalaysa dharkeeda sixirka ah, laakiin jinnigan ayaa aad uga xoog badan kuwa kale. wuxuu ka baxayaa xukunkii, wuxuuna ku laabanayaa qaabkiisii dhabta ahaa ee bahalnimo, wuxuuna ku qasbaa labadoodaba inay u cararaan noloshooda. kadib baxsashada, duwaan waxay bilaabaysaa inay dareen u qaado shuwaan, waxayna isku dayaysaa inay u dhowaato. haddana isagu wuu iska ilaalinayaa, wuuna ka tegayaa. kadib shuwaan wuxuu mar kale la kulmaa qofka ka sarreeya, wuxuuna uga sheekaynayaa wax kasta oo ka dhacay maqaayadda. qofka ka sarreeya ayaa xaqiijinaya in milkiiluhu uu dhab ahaan ahaa jini doofaar ah, wuxuuna sharaxayaa in wakhti fog ka hor uu ahaa mid naxariis badan, laakiin kadib markii xaaskiisu ay fiyaantay, wadna xanuunkiisii wuxuu u beddelay makhluuqaadkii uu noqday. qofka ka sarreeya ayaa markaas u sheegaya haddii uu dhab ahaan rabo inuu dib u habeeyo jini awood leh, waa inuu raadiyo kan ugu weyn uguna cabsida badan dhammaantood, boqorka daanyeerka Sun Wukong. markii shuwaan uu weydiiyo qofka uu yahay makhluuqaadkan, qofka ka sarreeya wuxuu sharaxayaa in boqorka daanyeerka uu yahay jinniga ugu xooga badan uguna khatarta badan ee jira. budda wuxuu ku xiray boqorka daanyeerka god ku dhex yaal buuraha 5 eber sano ka hor. qofka ka sarreeya shuwaan wuxuu u sheegayaa inay tani tahay sax meesha uu u baahan yahay inuu aado. wuxuu sharaxayaa meesha. sawir weyn oo budda ah ayaa halkaas yaal, agtiisana waxaa ku yaal god yar oo boqorka daanyeerka uu ku xayiran yahay. qofka ka sarreeya wuxuu uga digayaa shuwaan in boqorka daanyeerka uu yahay mid aad u xoog badan, aadna u caqli badan, marka waa inuu taxadaraa oo uusan ku dhicin wax kasta oo khiyaano ah. shuwaan wuxuu bilaabaa safarkiisa, laakiin dhowaan wuxuu ku dhacayaa dabagal qarsoon oo uu cagta ka dhaawacmaya. koox dad ah ayaa imaanaya, mid ka mid ahna wuxuu qoorta ugu xiran yahay jijimadii sixirka ahayd ee duwaan. waxay sheeganayaan inay yihiin ugaarsatada jinka, waxayna yidhaahdeen waxay qabteen duwaan. duwaan waxay si degdeg ah u mudaaharadaysaa iyadoo leh shuwaan waa ninkeeda iyo inaysan ahayn ugaarsato cadow ah, iyadoo ka codsanaysa kooxda inay sii daayaan. si loo hubiyo inay run sheegayso, kooxdu waxay weydiinaysaa caddayn ah inay dhab ahaan isguursadeen. iyadoo naxsan, duwaan waxay ku cadaadinaysaa shuwaan inuu xaqiijiyo islamarkiiba. isku day quus ah, waxay xitaa isku dayaysaa inay isku qasabto isaga qof kasta hortiisa, laakiin khiyaanadii markiiba waa fashilantay. waxay soo baxday in muuqaalka oo dhan uu ahaa mid loo qorsheeyey. dhammaantood waxay ahaayeen caawiyaashii duwaan, waxayna qorshaysay khiyaanada keliya inay ugu dhowaato shuwaan sababtoo ah way jeclay. markii shuwaan uu ogaaday in la khiyaamay, xanaaq ayaa gudihiisa ka karkaray, wuxuuna isku dayayaa inuu iska socdo, laakiin duwaan waxay si degdeg ah ugu amraysaa taageerayaasheed inay qabtaan. iyadoo niyad jabsan, waxay weydiinaysaa mid ka mid ah sida ay uga dhigi karto inuu jacayl u qaado. caawiyihii wuxuu u sheegayaa inay raacdo tilmaamihiisa si sax ah, iyadoo nuqul ka dhigaysa dhaqdhaqaaq kasta oo uu tuso. duwaan waxay u dhowaanaysaa iyadoo si taxadar leh ugu dayanaysa dhaqdhaqaaqyada caawiyihii u tusayo, iyadoo rumaysan in tani ay ka dhigi doonto inuu jeclaado. waxba ma dhacaan, mana dareemayo xitaa culayska ay ku hayso. si kedis ah waxay dareemayaan joogitaanka khatar ah, waxayna arkaan jinnigii doofaarka oo soo dhowaanaya. duwaan waxay ku qaylinaysaa taageerayaasheed inay gaariga si degdeg ah u kaxeeyaan. markay isku dayayaan inay baxsadaan, jinnigii wuxuu ku dhow yahay inuu dushooda yimaado. dhaqdhaqaaq quus ah, duwaan waxay jinnigii doofaarka ka tuuraysaa gaariga, laakiin wuxuu weerarayaa si kulul, wuxuuna u jajabinayaa gaariga cadadyo. shuwaan wuxuu u ordayaa dhankeeda, wuxuuna helayaa iyadoo miyirla, isagoo kor u qaadaya si uu u badbaadiyo. duwaan waxay si kedis ah u qoslaysaa oo ay ku maadaysaa, iyadoo weydiinaysa haddii uu hadda qiranayo inuu jecel yahay. shuwaan wuxuu u eegayaa si degan, wuxuuna ugu jawaabayaa inuusan jeclayn. isla markaas 3 ugaarsi oo kale ayaa soo muuqanaya. mid ka mid ah wuxuu ku dhufanayaa jinnigii doofaarka isagoo cayrinaya. ugaarsatada waxay markiiba bilaabayaan inay murmaan, mid kastaana wuxuu sheeganayaa inuu yahay kan ugu xooga badan. shuwaan ayaa dhexgalaya, isagoo xasuusinaya in iyagoo ah ugaarsato jinka ay tahay inay ka wada shaqeeyaan jinka halkii ay dhexdooda ku dagaalami lahaayeen. mid ka mid ah ugaarsatada ayaa ku maadaysa nin sabool ah, duwaan ayaana markiiba la safanaysa shuwaan. isagoo ka xanaaqsan, shuwaan wuxuu u sheegayaa inay joojiso inay mashquuliso iyo inay iska dayso. iyadoo xanaaqsan, duwaan waxay jeexjeexaysaa buuggii tuducyada ahaa ee shuwaan, laakiin ma daahaysid oo way iska socotaa. shuwaan aakhirkii wuxuu gaarayaa buuraha, laakiin ma arki karo sawirka weyn ee budda. wuxuu xirayaa indhihiisa, wuxuuna xoogga saarayaa si kedis ahna sawirkii wuxuu noqonayaa mid cad.
agtiisa waxaa jiifa godkii boqorka daanyeerka. gudaha wuxuu ka helayaa boqorkii daanyeerka wuxuuna weydiinaysaa sida loo dejiyo jinniga doofaarka. boqorka daanyeerka wuxuu u sheegayaa inuu bahalka kusoo jiido gabadh qurux badan wuxuuna ballanqaadayaa in mar haddii uu halkaas joogo uu ka adkaan doono. daqiiqadaas duwaan ayaa imaanaysa waxayna weydiinaysaa sababta uu halkaas u joogo. wuxuu u sheegayaa inaan la weydiin su'aalo badan wuxuuna leeyahay gabadh qurux badan ayaa loo baahan yahay iyaduna way caawin kartaa. markii jinnigii doofaarka uu soo muuqdo wuxuu weerarayaa isla markiiba laakiin boqorkii daanyeerka ayaa kasoo dhawaaqaya godka dhexdiisa wuxuuna usoo jiidayaa gudaha. shuwaan iyo duwaan way raacaan waxayna arkaan in jinnigii doofaarka uu yaraaday doofaar yar. iyadoo isticmaalaysa dharkeeda sixirka ah duwaan waxay u beddelaysaa boombalo yar oo doofaar ah waxayna siinaysaa shuwaan. waxay markaas u beddelaysaa jijimadeedii sixirka ahayd faraanti waxayna gashanaysaa farta waxayna qaadaysaa dhagax si ay u tijaabiso awooddeeda. markay tan aragto duwaan waxay iska bixinaysaa jijimadii sixirka ahayd waxayna u soo celinaysaa buugga tuducyada budistka ee shuwaan. waxay sharaxaysaa inaysan wax akhriyin karin markaasay ku qaadatay 3 maalmood inay buugga isku soo celiso waxayna weydiisataa cafis haddii wax dhib ah uu dhacay. dhowr daqiiqo waxay u baxaysaa si degan. shuwaan wuxuu bilaabaa inuu iska socdo laakiin codkii boqorka daanyeerka ayaa kasoo dhawaaqaya godka isagoo weydiinaya haddii ay tahay habeen dayaxu soo baxay. shuwaan wuxuu xaqiijinayaa inay tahay. boqorka daanyeerka wuxuu leeyahay dayaxa lama arki karo sababtoo ah ubax weyn ayaa xiraya iftiinka. duwaan ayaa soo bixinaysa ubaxa waxayna dhinac u tuuraysaa markii laga saarayna dhammaan ubaxyadii hareeraha yaalay ayaa dab bilaabay. ubaxu wuxuu godka ku dhexayay boqorka daanyeerka qarniyo badan. markii laga saaray boqorkii daanyeerka waxaa laga xoreeyey xabsigii budda. wuxuu dib u soo celinayaa qaabkiisii dhabta ahaa wuxuuna ka soo baxayaa godka isagoo ku dhawaaqaya in xitaa budda uusan joojin karin. shuwaan wuxuu taagan yahay si adag wuxuuna ugu jawaabayaa in budda uu weli joogo. boqorka daanyeerka ayaa si kedis ah u qabsanaya shuwaan oo ka siibaya timihiisa isagoo ku diganaya oo leh budda waa beenlow iyo in rumaysigiisu uu yahay mid aan waxtar lahayn sababtoo ah ma imaan karo halkaas si uu qof u badbaadiyo. daqiiqadaas 3 ugaarsi oo kale ayaa imaanaya iyagoo isku dayaya inay hoos u dhigaan boqorka daanyeerka laakiin isagu waa mid aad u xoog badan oo si degdeg ah ayuu u dilayaa 3doodaba. wuxuu u soo jeesanayaa inuu weeraro laakiin duwaan ayaa imaanaysa si ay u dhex gasho. xitaa iyadu ma awoodo inay u adkaysato awoodda boqorka daanyeerka waana la dilayaa. markii uu arkay jirka bilaa nololka ah ee duwaan shuwaan waxaa ka buuxsamaya murugo isagoo xasuusanaya wax kasta oo ay tiri iyo jacaylkii ay muujisay. ilmo ayaa ka soo qulqulaysa wejigiisa markii murugadu ay ka adkaato. boqorka daanyeerka ayaa markaas jirkii mis duwaan hawada u tuuraya taasoo keenaysa inuu gebi ahaanba dhaafo. isagoo quusan shuwaan wuxuu u yeerayaa budda kaas oo awooddiisa rabaaniga ah ay soo celinayso wadnaha boqorka daanyeerka kuna soo celinaysa naxariis. akhirka shuwaan wuxuu sii wadayaa safarkiisa isagoo ay weheliyaan boqorka daanyeerka jinniga doofaarka iyo jinniga webiga. intaas ayuu ku dhammaaday filimkeenna maanta. haddii aad ka heshay fadlan like saar si aad noogu dhiirigeliso xogaha dambe. ha iloobin inaad sabskrayb saarto kanaalka xogta filimada si aadan u seegin filimadii ugu dambeeyey. mahadsanidiin. qalabka qodista uuna soo gaarayo dhaawac aad u weyn. shaqaalihii waxay markiiba bool u geeyaan safariin taas oo samaysa intii karaankeeda ah si ay uga shaqayso dhaawaca bool iyadoo uu isagu dhex mumbayo wax ku saabsan inuu mar kale arkay faskiisa laakiin dhaawaca qalabka uu aad u weyn yahay. Peter wuxuu qabtaa gacanta bool wuxuuna u dubeeyaa naftiisa iyadoo ninkii miskiinka ahaa uu dhimanayo isagoo xasuusanaya faskiisa. markay Saara weydiiso waxa dhacay oo ay maqsho sheekada